Assalaamu calaykum dhammaan ku soo dhawaada YouTube channelkeena Horma. Halkaa waxaynu soo gelinaa barashada luuqada Ingiriiska qaab online ah. Maanta waxaynu qaadaneynaa casharkeenii 12aad qaybta Naxwaha Luuqada Ingiriiska. Hore waxaynu soo qaadanay 12 cashar. Haddaadan casharadaas hore usoo daawan, waa inaad kow ka soo bilowdaa si aad u fahanto. Laakiin haddii aad ka booddo casharada badan baa ku dhaafaya, waa muhiim cashar walba inaadan ka boodin inaad soo daawato waa muhiim si aad u fahanto qaybahaas iska warayaan. Maantana waxaynu qaadanaynaa casharkeenii 12aad qaybta Naxwaha Luuqada Ingiriiska. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay ama ku qaadan doonaa on dulsaaran in gudaha labadaas saddexdaas ayaa qaadanaynaa. On in waxaa loo isticmaalaya qaadanaynaa saddexdaas waa representation waa xiriiriyaal. Tusaale example, the book buuga is on the table. The buuga is on the table. Buuga wuxuu dul saaran yahay miiska. The buuga is on the table. Buuga wuxuu saaran yahay miiska. The bird shimbirta xarafkaas waa bird shimbir waa laakiin marka lagu soo daro the bird la dhaha way noqonaysaa shimbirta waxa u dambeeta the bird shimbirta. The cup koobka. The pen qalinka kulligood waxa u dambe waa aragtaan. The bird shimbirta is on the tree. Shimbirtu waxay saaran tahay geedka. The bird shimbirta is on the tree. Waxay saaran tahay geedka. The cup koobka is on the table. Koobka wuxuu saaran yahay miiska. The cup koobka is on the table. Koobka wuxuu saaran yahay miiska. My pen qalinkayga is on the cupboard. Qalinkayga wuxuu dul saaran yahay armaajo. Cupboard waa armaajo ama kaan soo tukanin armaajo siiba armaajo. My pen qalinkayga is on the cupboard. Qalinkayga wuxuu saaran yahay cupboard qaanada ama armaajada. In qaabka loo isticmaala in si fiican dhegeysta. The boy wiilka is in the room. Wiilka wuxuu ku jiraa qolka. The boy wiilka is on the room. Wiilka wuxuu ku jiraa qolka. The boy wiilka is in the room. Wuxuu ku jiraa qolka. Room waa qol. She ayada is in the kitchen. Ayada waxay ku jirtaa jikada. She is in the kitchen. She ayada is in the waxay ku jirtaa is in waxay ku jirtaa. She ayada is in waxay ku jirtaa the kitchen jikada. She is in the kitchen. Ayada waxay ku jirtaa kada. Omar is in. Omar is in. Omar waxaa ku jira wataagta. Omar is in a glass wasalka. Omar waxaa ku jira wasalka. Omar is in. Omar waxaa ku jira the glass wasalka. Omar is in the glass. Omar waxaa ku jira wasalka. The cloth dharka is in the cupboard. Dharka wuxuu ku jiraa qaanada. The cloth dharka is in the cupboard. Dharka wuxuu ku jiraa qaanada. The cloth dharka is in the cupboard. Wuxuu ku jiraa qaanada. The money lacagta is in the bookcase. Waxay ku jirtaa sanduuqa. The money lacagta is in the bookcase. Waxay ku jirtaa sanduuqa.